kuwaad moodo inay barooranayaan, kuwa bilicdii fankaba geed saradii ku laalay, kuwa kada loobsi jiibsaday, kuwa teembada dhinac ka raacaya, kuwaad moodaa inay xabsi ka soo dareereen, kuwa xaraashay xeerarkii fankaba, waarsow kuwa tayo xumadii fankaba tiir ka saaray. iyadoo ay maalmihii ugu dambeysay soo badanayeen dadka isku ekaysiinaya dad caana oo bulshada sumcad iyo sharaf ku leh, ayaa waxaa soo baxay wiil isku ekaysiiyey Dayax-Dal Nuurshe. wiilkan ayaa wata astaamo badan oo lahaa fanaanka Dayax-Dal Nuurshe, gaar ahaan jaaska iyo weliba qaybo ka mid ah qosolka, farxadda. haddaba wiilkan ayaa ku caanbaxay barta TikTok isagoo soo geliya bartaasi fiidiyoyo isagu iska duubay, islamarkaana uu ku duubay heesaha Dayax-Dal Nuurshe si uu ugu daydo isaga. haddaba hore waxa uu jiray wiil kale oo isaguna isku ekaysiiyey Dayax-Dal Nuurshe, kaasoo u jartay timaha siduu Dayax-Dal Nuurshe u jarto, garhka u jartay siduu Dayax-Dal Nuurshe u jarto, jaaskiisii iyo astaamihiisii leh. haddaba kanna waa mid kale oo ku soo kordhay saaxaddaasi, islamarkaana la dhigaya Dayax-Dal Nuurshe. dadkuna haatan dadka caankaaba isku ekaysiinayaan. haddaba wiilkani waxa uu followers fara badan ku helay astaamaha Dayax-Dal Nuurshe iyo weliba jaaskiisa. haddaba adiga ma kula tahay inaad qof caana isku ekaysiiso si aad u hesho taageerayaal fara badan iyo weliba si aad caan u noqoto? baryahan dambe taasi way fududahay, waanaad samayn kartaa si fudud adigoo isticmaalaya arrimo isaga u gaara, deetana ay dadku ku jeclaan doonaan huba. waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan subscribe noo saar kanaalkana, like saar si uu dad badan u gaado fiidiyowgani. wasalaam. maxaan cidla kale hameeyo muuqaalkiyo koorkayo masaloo jacaylaan dhex maraye. maxaan cidla kale hameeyo muuqaalkiyo koorkayo